Dimashq iyo guud ahaan Suuriya waxay mar kale muwaadiniinta dalkaasi isu diyaarinayaan hannaan dowladnimo oo caalamka la jaan qaada kadib nabaradii xanuunka lahaa ee dadka dalkaasi ka soo gaaray xukunkii dheeraa ee Bashar al-Assad iyo qoyskiisa. Warbixintan ayaan ku soo qaadan doonaa cidda horboodaysa dadaalada diblomaasiyadeed ee uu maanta dalkaasi hiigsanayo iyo taariikhda mid ka mid ah raggii ugu cadcadaa jabhadihii talada ka eriyay Assad ee ku qasbay inuu magangelyo weydiisto Ruushka. Ninka aynu ka hadlayno waa Abu Mohammed al-Jawlani oo magaciisa saxda uu yahay Ahmed Hussein al-Shara, iminkana ah madaxweynaha ku meel gaarka ah ee hogaamiya maamulka cusub ee Suuriya. Ninkan waxa uu muddo dheer ahaa hogaamiyaha kooxda jihaadiga ee Hayat Tahrir al-Sham oo ahayd jabhadda ugu weyn ee ka dagaalanta waqooyi galbeed dalka Suuriya, waana jabhadda kaalinta la taaban karo ku lahayd guusha ay mucaaradka Suuriya dalkooda uga saareen nidaamkii kaligii taliyihii Bashar al-Assad. Abu Mohammed al-Jawlani ayaa intii uu dagaalka Suuriya socday noqday shakhsiyaadka la xasuusan karo ee diiwaanka ku jira, waxaana muddadaasi marar kala duwan la baahiyay muuqaalka nin gar weyn leh oo gashan tuutaha militariga hagayana weerarada xukuumaddii Assad ka dhanka ahaa, waxaana taasi ay sababtay in lagu sifeeyo hogaamiye hal adag kaas oo soo afjaray xukunkii qoyska 50 sano gacanta birta ku maamulayay Suuriya. haddaba waa kuma Abu Mohammed al-Jawlani? Abu Mohammed al-Jawlani sida uu ku sheegay waraysi uu siiyay warbaahinta BBS sanadkii 2021 wuxuu tibaaxay inuu dhashay sanadkii 1981 isagoo ku dhashay dalka Sacuudiga, halkaas oo aabihii ka shaqayn jiray kana ahaa injineer saliid ilaa 1989. wixii intaasi ka dambeeyay qoyskiisa ayaa ku noqday dalkooda Suuriya, gaar ahaan xaafadda Mesa ee caasimadda Dimashq, goobtaas oo uu qayb ka mid ah waxbarashadiisa ku soo qaatay. ninkan oo hore uga tirsanaa al-Qaacida sidee ayuu ku bilowday socdaalkiisa jihaad-doonka ah? kadib duulaankii Mareykanka ee Ciraaq sanadii 2003, Abu Mohammed al-Jawlani waxa uu isaga tagay waxbarashadiisa isagoo u boqolay dalka Ciraaq, halkaas oo uu kaga biiray ururka al-Qaacida. durbo wuxuu noqday nin firfircoon oo ay kooxdu aaminto, dhexdoodana darajooyin muhiim ah ka qabta, aadna loogu kalsoon yahay. waxaana arrintaasi ka caawiyay hogaamiyihii al-Qaacida ee waqtigaasi Abu Mus'ab al-Zarqawi oo ay noqdeen saaxiibo ilaa xad isku dhow, maadaama Zarqawi uu ahaa aasaasihii al-Qaacida ee Ciraaq. wuxuu arkay shakhsiyadda adag iyo saameynta uu ninkan yeelan karo, wuxuuna muddo kooban kadib Jawlani ka dhigay ninka u qaabilsan fududeynta howlgallada laga fulinayo xuduudaha, waxaana sidoo kale uu u xil saarnaa isku xirka dagaalyahanada ajnabiga ah iyo falaagada gudaha ee xilligaasi qaadayay weerarada tooska ah iyo howlgallada camaliyaadka ama ismiidaaminta ah. sanadkii 2006 markii la dilay Zarqawi, wuxuu Abu Mohammed al-Jawlani u guuray dalka Lubnaan, halkaas oo uu ka sii waday fikirkiisa jihaadiga isagoo qayb ka noqday kooxda xagjirka ee Lubnaan ee Junda al-Sham. balse muddo aan badnayn oo halkaasi joogay waxa uu dib ugu soo laabtay Ciraaq, halkaa oo ay ku xireen ciidamada Mareykanka kuwa uu sii daayay 2008, wuxuuna isla sanadkaasi ku biiray dowladda Islaamiga ee Ciraaq oo waqtiyo kala duwan uu la soo qaatay ilaa laga soo gaaro 2011. kaalintiisii al-Qaacida oo marba marka ka dambeysa xoogaysanaysa ayaa soo dadejisay in dowladda Mareykanka ay Jawlani madaxiisa dul dhigto $10 milyan, waxaana ay u aqoonsatay hogaamiyaasha argagixisada ee ugu halista badan dunida. soo laabashadiisii Suuriya ayaa iyaduna macno weyn sameysay. sida la rumaysan yahay, Abu Mohammed al-Jawlani ayaa bishii Agoosto 2011 ku soo laabtay dalka Suuriya, waqtigaas oo uu Suuriya ka soo ifbaxay kacdoonkii looga soo horjeeday xukunka Assad, wuxuuna isagoo wakiilka al-Qaacida uu halkaasi u yimid yagleelidda laan ka mid ah al-Qaacida, taas oo ku biiraysa dagaalka looga soo horjeedo Bashar al-Assad. imaanshihiisii kadib, Jawlani ayaa bilaabay inuu la shaqeeyo hogaamiyaha Daacish Abu Bakr al-Baghdadi, balse waxa uu ku hoos watay qorshihiisii ahaa aasaasidda urur al-Qaacida ku matala Suuriya, taas oo ugu dambeyn u suura gashay sanadii 2012 oo uu dhidibada u taagay jabhad lagu magacaabo al-Nusra. kolkii ay u hirgashay inuu aasaaso jabhaddan, Abu Mohammed al-Jawlani waxa uu noqday nin dhiiranaantiisa ay korortay, helayna gabaad rasmi ah iyo ciidamo taabacsan, waxaana hogaamiyaha al-Qaacida Abu Bakr al-Baghdadi uu ka diiday inay isku biiraan Daacish iyo jabhadda al-Nusra maadaama ay hal cadow wada leeyihiin. wuxuuse taa beddelkeeda Jawlani cod dheer ku sheegay inuu daacad u yahay hogaamiyaha al-Qaacida Ayman az-Zawahiri, uuna Syria u yimid fulinta qorshihii ay al-Qaacida u soo dirsatay. arrintaas ayaa dhalisay inay badato garabka uu ka helayo al-Qaacida, waxaana taageerada kala duwan ee ugu imaanaysay ururkiisa al-Qaacida ay u saamaxday inuu dagaal la galo Daacish oo markaa awood ballaaran ku lahayd Suuriya, isagoo dagaaladaas ka soo hoyay guulo muuqda. hase ahaatee, bartamihii 2016 ayuu Abu Mohammed al-Jawlani qaatay go'aan, wuxuuna ku dhawaaqay in ururkiisa uu gabi ahaanba isaga baxay ururka al-Qaacida, isla markaana kooxdiisa loogu yeeri doono Jabhat Fatah al-Sham. waxaase sanadkii 2007 dib u habeyn lagu sameeyay jabhadda ay qaadatay magaca Hayat Tahrir al-Sham oo ah isbahaysi ka kooban kooxo islaamiyiin oo hogaamiyo al-Jawlani.
sanadkii 2021 al-Julaani ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka ee BBS inuu ka tagay hadafkii al-Qaacida ee jihaadka caalamiga ah, haddana uu diiradda saarayo oo kaliya sidii uu xukunka uga tuuri lahaa maamulka Bashar al-Assad ee Suuriya iyo sidii uu xukun islaami uga hirgelin lahaa Suuriya. xilligaasi kadib wuxuu xooga saaray hogaaminta kacdoonkii fallaagada waqooyiga Suuriya ee looga soo horjeeday Bashar al-Assad, wuxuuna door muuqda ka qaatay dagaaladii ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya, weerarkii lagu qaaday Xalab oo bariga ah, Xama oo koonfurta ah ilaa jabhadu gaartay Dimashq, wuxuuna noqday ninka ugu sareeya dhinacyadii riday Bashar al-Assad. qabsashadii Dimashq iyo xukunka tuuradii Assad wuxuu bedelay magaciisii jihaadiga ahaa ee Abu Maxamed al-Jawlani isagoo la soo banbaxay magaciisa saxda ah ee Ahmed al-Shara, wuxuuna durbo wareysiye siiyay warbaahinta caalamka isagoo xusay inuu doonayo inuu Suuriya ku hagaajiyo dhabo wanaagsan oo midnimo u horseedi karta, wuxuuna tibaaxay inuu kaalin ka qaadanayo ilaalinta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo in xukunka Syria ay cid walba iska dhex arki doonto. Ahmed al-Shara ayaa culeyskii ugu darnaa kala kulmay Israa'iil xilli uu muddo kooban joogay bartamihii bishii December ee sanadkii hore, waxaana Israa'iil ay markaasi u dhaqaaqday aagga ka caagan militariga ee gudaha Suuriya oo la abuuray kadib dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee 1973 oo ay ku jirto dhinaca Suuriya ee buurta istiraatiijiga ee Hermon ee dusha sare ka eegaysa Dimashq, halkaas oo Israa'iil kula wareegtay goob militari oo Suuriya ah oo la dayacay. Israa'iil ayaa intaasi kadib sheegtay inaysan talada ugu jirin inay halkaasi ku sii nagaato, waxaana duulaanka ay ku qaaday dhulka Suuriya ay ku tilmaantay mid xadidan oo ku meel gaar ah, kaas oo lagu sugayo ammaanka xuduudda, iyadoo boqolaal duqeymaha ku qaaday keedka hubka ee Suuriya, arrintaa oo noqon kartay xiisad hor leh. balse hogaamiyaha Suuriya Ahmed al-Shara oo dareensan marxaladda uu dalkiisu ku jiro ayaa sheegay in Israa'iil ay adeegsanayso marmarsiyo been abuur ah si ay qiil ugu raadiso weerarada ay ku hayso Suuriya, wuxuuna carabka u dhuftay inuusan doonayn inuu galo dagaal cusub, isla markaana uu diiradda saarayo dib u dhiska hay'adaha dalkiisa kadib dhamaadkii xukunkii Bashar al-Assad oo burbur badan ay ka dhaxashay Suuriya. Ahmed al-Shara iyo kooxda Xayaat Tahriir al-Sham waxay si xeel dheer u wanaajiyeen sumcaddooda, iyagoo sidoo kale xilal muuqda u magacaabay haween, wuxuuna isku dayay inuu xiriir la yeesho bulshada Kirishtaanka iyo Shiicada Calwiyiinta ee Suuriya. bishii February ee sanadkan, madaxweynaha ku meel gaarka ee Suuriya ayaa qaaday talaabooyinkiisii ugu horreeyay ee diblomaasiyadeed isagoo tagay Sacuudi Carabiya iyo Turkiga. tallaabadaas ayaa noqotay tub muujinaysa in Dimashq ay rabto inay ka fogaato xiriirka dhow ee la leedahay Iiraan oo ahayd xulafada ugu weyn ee Suuriya gobolka oo dhan. safarkiisa Riyaad waxaa ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda Ascad al-Shaybani, waxaana labada mas'uul qaaday diyaarad Sacuudiga laga leeyahay iyadoo calanka Suuriya la garab suray calanka Sacuudiga, taa oo ahayd soo dhaweyn meeqaam sare leh. wuxuuna kulamo kala duwan la yeeshay madaxda boqortooyada uu ku jiro dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada. Sacuudi Carabiya ayaa ahayd mid ka mid ah dalalka Carabta ee maalgeliyay kooxaha mucaaradka ee isku dayay inay xukunka ka tuuraan madaxweynihii hore ee Suuriya Bashar al-Assad kadib markii ay soo ifbixeen dibadbaxyadii gugii Carabta ee 2011. sidoo kale safarkiisa Turkiga ayaa ka mid ahaa kuwii lagu amaanay, isagoo Erdogan ka helay ballanqaadyo kala duwan oo la xiriira inuu taageero dhan walba ah la garab taagnaan doono Suuriya. waxaase xusid mudan in mas'uulkii ugu horreeyay ee booqasho ku taga dalka Suuriya uu noqday amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, kaas oo cadeeyay taageerada buuxda uu hayo isbeddelka Suuriya iyo baahida loo qabo in la hormariyo xasiloonida siyaasadeed iyo midda dhaqaale labada dal. dhinaca kale, Ahmed al-Shara ayaa si tartiib ah isaga fogeynaya Iiraan iyo Ruushka. Iiraan weli dib uma furan safaaradeeda Dimashq, taas oo hore u ahayd xarun muhiim ah oo ay kaga shaqeyso xiriirka iska caabinta oo ay ku mideysan yihiin Suuriya, Xisbullahda Lubnaan iyo kooxo kale. dalka Ruushka ayaa isagana sidoo kale doonaya inuu sii haysto saldhigyada cirka iyo badda ee Suuriya ku leeyahay, balse maadaama uu maangaliyo siiyay Assad, waxaa taasi ay qasabtay inuu dib u gorto, waxaana iminka uu qorsheynayaa inuu saldhigiisa u weeciyo dhanka Liibiya. taliskii Assad ayaa si arxan darro ah u dilay kumanaan Suuriyaan ah, isagoo kuwa kalena xabsiyo ku guray, waxaana ridistiisa xukunka lagu micneeyay ficil cadaaladeed, kaas oo suuragelin kara in dadka Suuriya ay dhistaan xukun ka wanaagsan kii Assad oo horseedi kara mustaqbal ifaya. waxaana dowladaha reer galbeedka ay tilmaameen in kooxaha xukunka la wareegay ay qaarkood leeyihiin diiwaan xun oo argagixisanimo, taa oo muujinaysa shakiga ay ka qabaan al-Jawlani. dhan kasta oo laga milicsado, Ahmed al-Shara ayaa kaalin ballaaran ka qaadanaya dib u soo nooleynta Suuriya kadib sanado badan oo ay colaado ragaadiyeen dalkaasi, balse geesta kale dadaalkiisa waxaa ku lamaan feejignaan uu muujinayo oo la xiriirta cabsida ay Mareykanka iyo Israa'iil ka qabaan ninkan. waase maalmo hubanti la'aaneed, iyadoo taariikhdu ay sheegi doonto halka ay xaaladdu u jihaysato iyo meesha uu gaaro xukunka dhawaangalka ah ee Ahmed al-Shara.